madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed oo ku sugan dalka Uganda ayaa hambalyo u diray dhammaan ummadaha islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed munaasabada Ciidul Adha isagoona sheegay inuu horumar iyo nabad u rajaynayo dawladda Soomaaliya isla mar ahaantaana ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan inay iscafiyaan waa kan Shariif Sheekh Axmed oo diray hambalyadaasi runtii waa munaasabad qaali ah dadka jooga Carafa ama Maka joogan Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka aqbalo cibaadada inta aan wali aysan u suura galin inay xijiyaan Ilaahay u fududeeyo dariiqeeda waa rukni arkaanta islaamka kamid ah runtii muujintiisa ay aad iyo aad muhiim u tahay maalmahan waxay kamid tahay maalmaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee loogu dhawaado dhikriga loogu dhawaado sadaqa bixinta loogu dhawaado xiriirinta qaraabada iyo ahalka iyo asxaabta leesna cafiyo marka waxaan rajaynayaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala dhamaanteen inaan ka faa'iideysano munaasabadan qaaliga ah mar kale ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo meel aad joogtiinba hab wanaagsan iyo walaalnimo iyo istixgelin lagu baadi doono sidaas oo kale dadku inay iscafiyaan oo la iloobo dhaawacyadii hore u soo gaaray shacabka Soomaaliyeed sida aan wada ognahay waxaa dandaraysan dalka dad badan oo Soomaali ah gudaha iyo dibaddaba haddaan mashaakilka laga heshiin oo aan midnimadii la baadi goobin waa adkaanaysa in xal loo helo marka ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay dhammaantood qof kasta wax garada qof kasta oo u damqanaya Soomaalinimada qof kasta oo damqanaya maxay ahaato diinta in leesi saamaxo loo wada jeesto hal jiha oo ah ummadda Soomaaliyeed inay ku wada noolaato nabad iyo horumar iyo midnimo. إجلس سامح على التلفزيون عالم في كل سنتين كمان.